السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبا هذا الجرامة امتحنا مادة أدفانس كونتاكت لينس hadduu ilaahay raado maanta waxaan ka hadli doonaa lecture-keena xiga hore waxaan ugu soo hadalnay hard contact lens maanta hadduu ilaahay raado waxaan ka hadlaynaa sclera contact lens. Scleraha waa nooc ka mid ah noocyada ugu caansan marka laga hadlayo contact lens. marka laga hadlayo marka waa maxay sclera contact lens? Sclera contact lens waxaa waa large diameter waa square oo aad u weyn waay kaasoo ah rigid gas permeability RGB lens waxayna ku tahay body over the cornea completely. sidoo kale rest waxay ku noqonaysaa on the sclera. marka laga hadlayo RGB lens in the cornea marka laga hadlayo waxay ku fariistaa corneada rest waxay ku noqotaa limbiska. laakiin marka sclerada laga hadlayo cornea ku fariisanaysaa waxay rest ku noqonaysaa sclera. farqigaas u dhaxay create waxay samaysaa scleral lens fluid filed oo loo yaqaano oo fluid u dhaxeynaya between the lens and the cornea. waxaa leeyahay characteristicskeeda diameterka square-ga marka laga hadlayo waxaa waaye 15 ilaa 24 millimeter. larger than waxay ka weyn tahay corneal lens. RGB way ka weyn tahay sidoo kale soft contact lens way ka weyn tahay. hore waxaa ugu soo hadalnay diameter of the cornea waxaa ka soo hadalnay in markii laga hadlayo soft contact lens waxay u dhaxaysaa 12 ilaa 15 waqti qaar waxay gaarsiisaa 13 ilaa 15. markii laga hadlayo diameterka oo markii laga hadlayo RGB markii laga hadlayo waa 10 ilaa 8 waa. halka markii laga hadlayo sclera waa nooc ugu caansan sclera contact lens waa 15 ilaa 20. waxaa leeyahay sidoo kale does not touch the cornea ma taabanayso corneada way ku fadhiisanaysaa corneada laakiin waxaa u dhaxeynaya fluid oo lensiga teariska ay u dhaxeynaya. sidoo kale rest waxay ku sameynaysaa sclera oo wide partiga. valid waxay ku noqonaysaa with saline before the insertion. inta badan valid waxaa lagu sameeyaa with saline before the insertion. inta badan qofka intuusan maxaa leeyahay oo isticmaalo insertion ugu sameeyo intuu gashanay waxaa loo isticmaalaa saline solutionka oo soft contact lensiga ayaa loo isticmaalaa. minimum movementigeeda oo isha markay nuucsanaysa aad iyo aad ay u yartahay markii laga hadlayo sclera. waxaa leeyahay unique featureska ay si gooni u leedahay waxaa ka mid ah fluid reservoirs oo ah tear lake muhiim waay. waxaa waa space u dhexeeya between the cornea and the lens. waa space u dhexeeya between the cornea and lens. lensiga waxaa laga hadlayo maaha lensiga isha gudaha ku jiro waa lens sclera contact lensigeeda waay. is filed waay with the fluid provide wuxuu siinaa marka constant lubrication wuxuu sameynaa lubrication joogto ah ayuu u sameynaa. sidoo kale optical smooth surface opticalka aragtida waxay noqonaysaa smooth surface ay noqonaysaa. protection wuxuu u noqonaa fluidkaas wuxuu protection u noqonaa cornea waxaa loo yaqaanaa reservoirs fluid tear lake. materialskeeda meedha waxaa laga sameeyaa high decay RGB lens high decay. sidoo kale allowed wuxuu ogolaanaa waxaa leeyahay good oxygen transmission. typeska intaa nooca loo kala qaado saddexdaa nooca loo kala qaado. mid ugu hore waxaa loo yaqaanaa mini sclera loo yaqaanaa. diameterkeeda waxaa waaye waa 15 ilaa 18. most common use waay mini sclera. full sclera mid lahaa jirto waa diameterka waa 18 ilaa 24 waa severe conditionska loo isticmaala. semi sclera waa corneal sclera intermediate size waay partial research of the cornea and sclera plus sclera waa very important waay. saddexdaa markii laga hadlayo noocyada ugu caansan waay. nooca ugu caansan waa mini sclera oo 15 ilaa gaaray 18 millimeter. nooca labaad oo full scleraha oo la isticmaalayo waa 18 ilaa 24 iyo semi sclera. markii laga hadlayo clinical indicationska waxyaaba loo isticmaalo waxyaabaha kale ay kaga gedisan tahay waxaa lagu horeeya waxaa keratoconus oo irregular cornea sclera create waxay samaysaa smooth surface sameynaysaa. zafir dry eye bukaanada dry eye aad u qabo inta badan ma isticmaala PMA
oo inta badan oxygen transmission badan maxaa la dhahay oxygen transmission ka luminaya probability decay zero oo ka dhiga so marka dry eye fluid ka reserve and keep eye hydrated ayuu ka dhiga corneal scanning improve wuxuu sameeyaa vision by the masking irregularly post surgical cornea waa LASIK complication cornea graft aad ayuu muhiim u yahay waxaa loo isticmaalaa bukaanada complicationska oo LASIK surgery kadib loo sameeyo waa waxyaabo badan loo isticmaalo iyo cornea grafting bukaanada loo sameeyo ocular surface disease Stevens Jones syndrome iyo chemical burn waa waxyaabo ugu badan ee loo isticmaalo ocular surface diseases ka qabo advantage iyo disadvantage let's come to advantage disadvantage excellent comfortable ward qofka bukaanada qaar isla markaa isticmaalaan comfortable dareemaan dibsad large size maadaama ay tahay large size so kale stable vision keeda stabilization waa protect the cornea way difaacdaa cornea protection oo tahay sidoo kale idea for irregular cornea reduce waxay sameysaa dryness symptom disadvantage markii laga hadlayo expensive one aad iyo aad ayay expensive u tahay sidoo kale difficult handling or insertion and removing difficult ayay noqonaysaa expensive one sidoo kale waa difficult one inuu qofka isticmaalo insertion iyo removal waxay way ka adag tahay noocyada kale waxyaabo ugu adag tahay waxaa la isticmaalaa insertion type oo la isticmaala jiro nooc si qaar loo gashto si goon loo gashto inta badan farti inuu qof ku qabto way fududahay laakiin waxaa inta badan la isticmaalaa helder oo insertion ah oo la isticmaalo helper insertion oo dadka ka tagtalaysa sidoo kale less tear exchange ga way yartahay inta badan disadvantage-da expensive-ka iyo markii laga hadlo required training-ka bas ay inta badan waqti u baahan laakiin inta kale waa aad u fudud waxyaabo la xalin karo advantages-keeda ka badan disadvantages-keeda complications-ka hypoxia if bone fitted complication-ka hypoxia markii laga hadlayo waa 0 wax ka yar hal wax ka yar waa complication-ka aad ayuu u yaryahay soo kale fogging ayuu qofka dareemaa debris in resolvous fluid fogging ayuu qofka dareemaa ceeryaam dadka qaar complication qaar ka dhasho waa sidoo kale shocking effect oo ah mental blurred oo ah mental inuu dareemo qofka fitting principle important waxa ah lens should be fold the cornea completely cornea inay ahaato fold of the cornea in noqoto no corneal touch inuu corneadan taaban even sclera landing adquired waxaa loo baahnaa tear resolution okay clinical brain exam and wave hadii lacala exam ahaan loo maato xasuus ahaan se u qaadi sclera lens intaa waxay ka kooban tahay fold plus fluid resolution fold waxa ay tahay iyo fluid resolution waxa uu yahay hore usoo aragnay waxyaabaha muhiimka ah fold waxaa lahaa markii corneada ee dabooleys corneada aysan taabanin laga dabooleys fold yaa loo yaqaanaa fluid resolution waxaa waaye markii la isticmaalayo waxaa la sameeyaa fluid resolution kaasoo fluidkaas u dhexeynaya between the cornea and the lens muhiim waa maxaa loo isticmaalaa keratoconus-ka sapphire dry labadaas muhiim waa iyadan mar walba maskaxda lagu hayo provide both type labada isticmaal loo isticmaala haday noqoto optical correction iyo therapeutic effect minimal movement way markii loo barbar dhigo aad ay ugu yartahay RGB lens summary scleral lens waa large diameter lens in the sclera shakal create waxay sameysaa fluid cohesion of the cornea ideal irregular and disease cornea hada kaga madcelina markii laga hadlayo volti in simple definition saa usoo qaadan fold waxaa waa space-ka u dhexeeya markay fiirsanayso waa space u dhexeeya scleral lens and the cornea so kale does not touch the cornea inay taawato cornea lama rabo lensiga simple understand fold waxaa waaye above the cornea markuu sameynayo above markii cornea ka horeysa waxaa loo yaqaanaa lensiga fold and that gap waxaa loo yaqaanaa gaapka u dhexeeya corneada iyo lens waxaa loo yaqaanaa fold clinical important waxyaaba muhiim waxay u tahay prevent waxay ka hortagtaa cornea damage allow the space of the fluid refluction-ka too tight markay tahay oo aad u adag tahay too low iyo too high too low markay tahay cornea touch way too high markay tahay corneal oxygen way
fluid resolution, fluid resurface. Simple definition markii laga hadlayo waa saline water way kaasoo layer fill of the space faulty space ku dhexeeya cornea iyo lensiga fluid la isticmaalayo between dhexeeya lens and the cornea. Simple understand fluid waxaa la senda under the lens formed liquid collusion. Clinical importantiga keep the eye moist. Inta badan wuxuu ka qayb qaadanaa isha inay ahaato mid qoyan, important for dry eye. So can improve the vision, smooth by the cornea, protect the cornea like the bandage. In short summary, fault is base, fluid resolution, faulty waxaa waa space, halka fluid kan uu yahay fluid that in the space. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.